السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalahay waan idin salaamayaa dunida meel kastoo joogtaan. insha Allah maanta waxaan inoo hayaa bushaaro. waxaan idinku bushaareynayaa in aanu aragnay daawo iyo dhakhtar bilaa lacaga salaadii subax markaan ka soo baxnay ee aanu tukannay ayaa waxaanu aragnay daawo bilaa lacaga iyo dhakhtar bilaa lacaga. waxaan idinku bushaareynayaa duco aad isku daweynayso xanuun kasta oo ku haya kaa daweynaysa. duco xanuun kasta oo ku haysa, xanuun kasta oo kula soo darisay, xanuun kasta oo ku haya, xanuun kasta ood ka cabanayso, duco qaali ah oo kaa daweynaysa ayaan kuu hayaa. waana duco aad ku meel marayso, ilaahay idamkii aad ku meel marayso. waxaa noo imi baryo dhexdaasa oo masaajidka nagula soo tukaday nin dhalinyaro ah oo ka imi Jabuuti. waa nin dhalinyaro ah oo Jabuuti ka imi masaajidku nagula soo tukaday. wiila soo fadhiistay wuxuu ugu yidhi sheekh naftaydii baan nacay buu yidhi. sheekhow naftaydii ayaan nacay. maxaa dhacay baan ku yidhi akhi. wuxuu yidhi xanuun xun baa ila soo darisay, xanuun xun ayaa ila soo darisay. naftaydii iyo ehelkaygii iyo dadkaygiiba waan nacay buu yidhi iyo noloshii. waxaan ku yidhi bal xanuunkaaga ii sheeg. wuxuu yidhi kansal baa i haya, kansal ayaa igu dhacay, weliba maqaarka iyo dhiigga raacay. xanuunkaas ayaa igu dhacay buu yidhi kansalka ah. xanuunkaas ayaan dabeetana dadkaygii iyo naftaydiiba ku nacay. sheekhow waxaan doonayaa inaan masaajidka dhexdiisa ku dhinto buu yidhi, anigoo sujuudsan oo tukanaya in aan masaajidka ku dhinto ayaan doonayaa buu yidhi. waxaan ku yidhi goortii alla kuu qoray ayaad geeriyoonaysaa akhi, laakiin anigu duco ayaan kuu sheegayaa baan idhi. duco ilaahay kugu badbaadinayo, caafimaadna aad ku helayso ayaan kuu sheegayaa baan ku yidhi. dabeeta ninkii wuu farxay. wuxuu yidhi sheekhow ii sheeg, ducadaa haddaad laasimto adduun iyo aakhiraba caafimaad adduunka korkiisa caafimaad taama baad ku helaysaa baan idhi, aakhirana xasanaad iyo ajar baad ku helaysaa. wuxuu yidhi sheekhow ii sheeg. waxaan ku yidhi salaada subax marka aynu ka baxno ee aad tasbiixda dhammaysato, salaadka subax markaynu ka baxno ee aad tasbiixda dhammaysato, halkaa fadhiisa keligaa waxa aad ku soo cadcadisaa allaahumma ashfiinii, allaahumma yashfiinii biraxmatika biamrika biqudratika biquwatika. اللهم يشفيني برحمتك بأمرك بقدرتك بقوتك. انت كسو على العلي باندي وان عدد لهن إلا إيا انت أتكد ليسو. بلاد الدعاء عندي كسو عليو إخواني إنونا شير قرية ولا له نقود ديقة. داد بدن او واحد شلا حانون كعبانايا، داد بدن او واحد شلا il iyo sixir iyo waxaas ka cabanaya. dad badan oo waxa jira finan ka cabanaya, dad badan oo waxa jira kansal ka cabanaya, dad badan oo waxa jira xanuun halis oo HIV ka cabanaya oo islaam oo muslina. waxa hubaala ducadan in Allah tabaaraka wa tacaala uu kugu caafinayo oo aad shifo ka helayso, caafimaad sariic oo degdeg aad ka helayso. waana arkay saakaanuu iigu bushaareeyey ninkii ducadaas akhriyey masaajidka dhexdiisa. ninkii aan ku daweynay ducadaas ee laasimay ee ku soo calcaliyey ee aan markaasi idhi salaada subax markaad ka baxdo ee tasbiixda dhammaysato halkaa fadhiiso oo akhri ducada. ninkii oo saaka caafimaaday ayaa masaajidka dhexdiisa nuugu bushaareeyey. weliba keliga iguma bushaareyna intuu kacay
ayuu dadkoo dhan u sheegay inuu caafimaad taama helay isaga oo faraxsan. muxuu rabbi ka daweeyey kansal, xanuunka kansalka oo maqaarkiisa iyo dhiiggiisaba raacay ayuu rabbi ka daweeyey tabaaraka wa tacaala. waa dawo bilaa lacaga, waa dhakhtar bilaa lacaga, waa dhakhtar bilaa daala, waa dawo bilaa daala ayaa rabbi daweeyey tabaaraka wa tacaala. ducadaan idinku soo calcalinaya ikhwaani, sheergareeya si dadka markaasi dhibaataysanay dhibaatadu haysato ducadaas uga baxaan, dhibaatadaas kaga baxaan. ducadaas salaada subax kadib markaad salaada subax tukato ee aad tasbiixda dhammaysato ayaad meel gooniya fadhiisanaysaa, meel gooniya ayaad fadhiisanaysaa. markaas ayaa waxaad leedahay allaahumma ashfiini, allaahumma ashfiini biraxmatika biamrika biqudratika biquwatika yaa rab alcaalamiin. haa, ducadaas ayaad ku soo calcalinaysaa, ducadaas ayaad ku soo calcalinaysaa adiga oo rabbi kaga dalbanaya caafimaad taama, adiga oo rabbi kaga doonaya dawo degdeg ah. waa goorma laakiin? waa salaada subax kadib, salaada subax marka aad tukato kadib ee tasbiixda dhammaysato ayaad meel gooniya fadhiisanaysaa adigoo waysadaada qaba. markaasaad ku soo calcalinaysaa. waa cadad la'aan, waa xisaab la'aan. cadad kuu qaban maayo, xisaab kuu qaban maayo. waad ku soo calcalinaysaa ilaa inta afkaagu ka daalayo, ilaa inta aad daalayso ayaad ku soo calcalinaysaa walaal. inta ay kuu noqoto, hadday 5 kun aad ku daasho, haddaad 4 kun ku daasho, haddaad 100 ku daasho, haddaad 200 ku daasho, haddaad hal mar ku daasho, haddaad 10 kun ku daasho, ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kugu caafinaya, caafimaadna waad ka helaysaa. waana hubaal ninkaas ii imi ee jabuuti ka imi, jabuuti buu ka imi, nin dhallinyaro ah buu ahaa. wuxuu yidhi sheekhow naftaydaan nacay oo noloshii baan nacay oo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii baan nacay. waxaan doonayaa sheekh xamsow inaan baytullah dhexdiisa ku geeriyoodo maadaama kansalka uu xunu i hayo oo aan daawo lahayn, meel walbana aan ka soo quustay oon geeridii sugaayo. waxaan doonayaa inaan ku dhex geeriyoodo baytullah, masaajid dhexdiisaan rabaa inaan ku geeriyoodo. wiilkaas wuxuu ahaa wiil ka soo quustay dhakhtar walba, dhakhtar walba uu ka soo quustay, meel walba uu maray. waxaa lagu yidhi geeridaada sug, geeridaada sug baa lagu yidhi, geeridaada sug, waad geeriyoonaysaa, geeridaada iska sug, xanuunkaagu dawo ma laha baa lagu yidhi. dabeetana hargeysuu yimi, miyigaasuu tago u caano doontay, caanihiina waxba way u qaban waayeen. waa soo laabtay, hargeysuu yimi, hargeysa isaga oo jooga buu ku soo tukaday masaajidka aan markaasi anigu joogo ee mar walba dhex fadhiyo. dabeetana wuu ila sheekaystay, wuxuu yidhi sheekh xamsow waxaan ahay dismoral, noloshii baan nacay, ehelkii baan nacay, qaraabadii baan nacay, cid walba waan nacay, cid kasta waan nacay. waxaan doonayaa maadaama xanuunkaygu aanu dawo lahayn inaan ku geeriyoodo masaajidka dhexdiisa, inaan ku dhinto. waxaan ku yidhi akhi, anigu ducaan kuu sheegaya, maalin kasta salaada subax markaad ka baxdo inaad meel koona a fadhiisato. marka aad salaada subax ka baxdo ee tasbiixda dhammaysato inaad meel koona a fadhiisato oo dabeetana afkaaga ku soo calcaliso ducadan: allaahumma yashfiini, allaahumma yashfiini biraxmatika biamrika biqudratika biquwatika. ducadaas ku soo calcali baan idhi ilaa inta aad ka daalayso. kadibna aynu eegno natiijada ka soo baxda ducadaa rabbi aad ducaysatay eed ku bariday. ikhwaani, wiilku hadda wuxuu nala joogay muddo gaadhaysa 13 berri, 13 berri ayuu nala joogay ilaa maalinkaas, ilaa maalintii aan ducadaa u sheegay, ilaa iyo saaka uu masaajidka ka dhex istaagay isagoo faraxsan, isagoo faraxsan oo isbeddelay
oo qoslaaya oo dhoola caddaynaya oo dhulku ku yaraaday ayuu salaadii subax markaan ka baxnay istaagay markaasuu kor u qayliyey kor buu u qayliyey ikhwaani kor buu u qayliyey markaasuu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad leh waxaan u mahadnaqayaa ilaahay iyo walaalkay sheekh xamse ayaan u mahadnaqayaa buu yidhi oo duco igu daaweeyey wuxuu yidhi aniga oo dhismoorala baan imi magaalada sheekh xamsaan la kulmay waxaan ku yidhi sheekh xamse waxaan doonayaa in aan ku dhinto masaajid dhexdiisa maadaama aanan xanuunka i haya aanu dawo lahayn sheekh xamsow waxaan doonayaa baytullah dhexdiisa inaan ku dhinto maadaama aanay nolol ii hadhsanayn xanuunkaygiina dawo loo waayey